halkan kulan khayr qaba ayaa baan iskuulay kulankeena kulan khayr qaba Allah ka dhigo kii lagu intifaaca Allah ka dhigo kii ka aynu hindisaha aynu galay kii insha Allah inuu rugo Allah ka dhigo kulankan aan isku nimidnay waxa weeye kulanka xabaalaha annagoo ah ururka naafac oo ku tala galay inaan wax qabadka magaalada kolbahalka u daranayno arkayno inaan wax ka qabano meelo badan oo horena aan magaalada wax ka soo qabanay muhiimadii doorkana waxaanu saarnay inaan xabaalaha wax qabad aan dayr weyn u sameeyno dhamaantood bilowgiina anaga taagan magaalada amba dalka degadiisa amba gudihiisa ahaatee wixii wax ku soo darsanayna way u furan tahay maanta waxaanu taaganahay koow wixii ka dambeeyana insha Allah bidmilaahi karin aan koodadaydana waanu idin sheegay dadkii wax ku darsanay amba magaalada ha ahaato amba dibadda ha ahaato na way u furan tahay magaalada waa hoygeena dhabta ahaa waa hoygii aynu sugaynay waa ka ina wada sugayay aynu hoygeena waa kan adduunyadu waa afar maalmood kii xaqiiqada ahaa baynu maanta taaganahay walaaleel waxaan idin doonaynaa dadka muslimiinta ee aan magaaladana jooga amba qurbahaba ku maqan inaad gacan ka soo geysataan xaqiiqada dhabta ah ee aynu taaganahay maanta والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنت هكذا واحد دمان كسلام يكوننا بنسوي ميد نمام القلب المدح الشرقية الموجودين مثلا يدوم يقولوا كم نافع يدوم يأكل مش يسوي حسنا صلاة الإسلام كا أنت كبع ما تنسوي بماي أو أي هرمود كيهين أو أي بلابين نافع وقشة هي بدون أروسية أنت سبوران waxaan isku nimid maanta deerti xabaalaha waxaynu nahay xabaal waxa ku jira hilkeeni inaguna waynu galaynaa taasaa tii runta ahayd ee la isugu imanayay dadweynaha dhammaantii rabsiyo iyo gudaheeda iyo dibaddeeda iyo dadka dibadda jooga oo dhammaan waxaan leenahay ka soo qayb gala waa bilow intii bilowday ilaahay ka jisaaysiiyo cid kasta wax ka soo darsatana waxaan leenahay ilaahay ka jisaaysiiyo xaqiiqada Allahna garansiiyo waa xaqiiqadii runta ahayd waa hoygeeni runta ahayd waxa halka dhamaan ku jira eheladeeni dadkeeni oo dhan baa ku jira inaguna waynu ka daba tagaynaa maxay heedeen wuxuu walba wax weey caruuraha dhex maraya wax kasta oo dhibaato ku dhacaysa waxa la gartay oo maanta ilaahay khayr ka siiyay lagu tala galay in deyrka la dhiso oo la wareejiyo waana aadna way u ballaaran tahay oo waa marxalad aad u far badan oo ururiyo cid kastaba ka badan marka dadweynaha waxaan ku buurinaynaa reer arabsiyo gudaha dibadda in ay ka soo qayb galaan oo khayraadka dadka la qaybsadaan oo ay qaybsadaan anigu sahar ahaan 100 xabadood oo jaajuura ayaa bixinayaa imka hadii qadaraha laga soo doono dadkana waxaan leeyahay dhamaantiinba ka soo qayb gala oo qof walba wixii aad bixinayso si dhaqso ah si inta raabka ka horeysa insha Allah bilaa karu dhamaado oo aynu dhamayno ee magaalada balaaran baynu nahay hadii dibadda iyo dad la isku darsado xataa magaalada gudaheeda hadii loo xal baxad dhamayn karaysa oo waxa weeye dawaa dad baynu nahay horena way noogu eegay haddana maanta hadii alla noo qadaray waxaan leenahay qof kasta oo reer rabsiyada oo ka damqanaya inta dhimatay inta noolba waxaan leenahay ka soo qayb galo insha Allah bilaa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما أنت واحد لكن تعيننا ديرك حواليه مقالة عرب سيون جماعات عرب سيون حوالها سيبان تعيننا دير بان دوننا هنا كوريتي نوانا كاسا والله في الأول أركسان waxaan ugu baaqaynaa dadka muxsiniinta haday arabsiyo joogaan haday degmooyinka iyo gobolada kale joogaan iyo haday dibadda joogaan oo qorbajoog yihiinba inay ka soo qayb galaan deerkaasi oo ilaahay daraadii ay uga soo qayb galaan waa xabaaliyo waa hoygeeni rasmiga ah weeyaan adduunyada inta lagu nool yahay waa yar waa meel xabaalahaasi ka soo qayb galo qof walba gacanta jeebka gacanta geliyo qof walba wuxuu ku darsanayo ha ku soo darsado بسم الله الحمد لله ثناء بالله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد waxaan maanta ka shaqeynaynaa xabaalaha deerkiisii xabaalihii iyo xoolihii iyo dadkii iyo wax arab wada geliyaan heeradaba nagu agteena marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam caashu waxay tiri habeenka saqda dhexe ayuu xabaalaha tagi jiray wuxuu oran jiray assalaamu calaykum daara qawmil mu'miniin وإن إن شاء الله بكم لاحقون يورنج مركو سيارتو السلام عليكم بكورني
marka dadkan qubuuraha ee halkan joog deerka u sameynayna wayna maqlayaan laakiin ma maqlayno marka si aynu hawayaanka xoolaha dadka uga deeruga sameyno wayna ammaan noqoto deer iskuulin laga soo qayb galo ninkii 100 mid bixinaya ninkii 10 mid bixinaya ninkii xabad jaajuura bixinaya qofna lama nacay nin walba karaankiisa haddaynu gacmees qabsanno oo qof xabad bixiya iyo qof laba bixiya way dhamaanaysaa waxaa shaqaynaya dhalinyartaas meydhani waxa ku shaqaynaya waa tabarruc in xooggiisa sadaqaystay in gacantiisii bilaash bay ku wada shaqaynayaan dadkaas dhalinyarta yaryar waxaan leeyahay dhammaan dibad iyo gudaba halaga soo qayb galo salaam بسم الله الحمد لله ثناء الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين دمان أنت هذا شيء مهتسيين أنا جوحن كهر ليا أفك أورك نافع أنا جوك كهر ليا يا هوشن قوان قابل ذي له وحن آد قوم هذا نقيا ذاك شرفت له يا حبناها كأورك نافع إيوه أنت كلا قيب قادتي هوشن مقام بلوني وما أها ururka naafic oo kaliya xubnihiisa kuma koobna magaalada dad badan oo nagala qayb qaatay inta bilowga ayaa jira aad bay u mahadsan yihiin waxaan halkan ka soo jeedinaynaa walaalayaal kulley adduunyada lama joogayo waa laga tagayaa inteena socoto dhani mar baynu xalaala noqonaynaa waxa loo baahan yahay wixii ilaahay dartii loo qabanayo sida hawshaas oo kale inaan dhinac ka wada joogsano bilowgan maanta aan bilownay ma aha hawl inta ururka naafic oo bilaabay uu dhamaynayo laakiin waxaan u bilownay in aan dadka tusno laga qayb qaato dibeetana cidii marka hore ka qayb qaadatayna waxa jira dumar badan oo ururka naafic kamida oo magaaladiya dad badan oo magaranaysaa wax bixiyay lacag bixiyayna way jiraan imigana waxaan doonaynaa waxaan bilownay 100 mitir oo hawsha ku qiyaasnay imiga wixii qarashan haynay laakiin waxaan idinka sugaynaa dadka islaamka haddaad arabsiyiin iyo haddaad ka baxsantiinba inaad ka soo qayb gashaan haddii ilaahay yiraahdo ka qayb qaataan xabaalaha soo xashiishkiiba xataa iyadoo lagu shubayaano aragnay iyadoo xoolihii iyo wax walba saa hortay la sheegay walaalayaal intaynu ifka joogno waxa weeyaan aakhiro wax la isku taraynayno arrinka ka qayb qaadanaan idinku goorinaya idinku garanaysaa tirtirsiinana haddaanu ururka naafacnahay waan bilownay waan dhamaynaana maaha dadka ka qayb galay iyo kuwa ka qayb gali doonana aad baan u soo dhaweynaynaa sida qaybtayga horreysay sheegtay imiga waa taasoo gacantii iyo mid walba laga shaqaynayaa waan aad iyo aad baad u mahadsantihiin salaan kadib ilaah baa mahadnaq ku keenay hoygii rasmiga ahaa baynu joognaa xabaalihii nin nool qof dumara ama rag ma ahaatee bini'aadama noolna halkaasa tahay xarunteennii wayna wada sugaysaa waxaa loo baahan yahay inaynu u dadaalno oo aynu ka ilaalino wixii hagardaaminaya guryaheenna iyo dadkeenna iyo ehelkeenna kalaba inta nool waynu ilaashanaa inta dhimatayse ma ilaalino waxaan jecelnahay in la ilaaliyo oo deyrkaas la bilaabay 100 mitir ee maanta la bilaabay halkaa laga sii wado oo ay joojinin inta bilowdayna waanu mahadnaqaynaa inta kalena waxaan leeyahay ku soo dayda guud iyo dibadba inta bilowdayna duca ayaanu rajaynaynaa wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين halkan waxa weeye xabaalihii degmada Arabsood oo nu ku tabarucayno jaajuur iyo xoogba una baahannahay wax naga caawiya taasoo aad arkaysaan jaajuurkii iyo dhiskii iyo gacantii iyo sawirkii wixii baanu gacanta ku hayno arkaysaan haddii xagga laga helo waxaanu doonaynaa khaas ahaan qurba joogta Arabsood iyo wixii danaynayaba inay wax la baxaan walaalayaal waxaanu doonaynaa inaad naga soo caawisaan xabaalahaas oo aad u dayacanoo xooluhu gelayaanoo aad u basanbaasay baanu doonaynaa inaanu deyr u dhisno السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد maanta waxaynu taaganahay waxa weeyaan bilowga deyrkii Arabsi loo sameeyay xabaalaheeda xabaalahaas iyo dayacnaa waxaana bilaabay hawshaasi ururka la yiraahdo naafic oo Arabsiga ka jira
ururkaas oo da'yar muddo kooban jiray wax badanna soo qabtay oo isugu jira ururkaasi dhalinyar iyo haween isxilqaama oo kuwa maanta xoogooda ku shaqaynaya oo kuwa hantidan bixinaya oo kuwa kun shilin magaalada ka soo ururiya oo kuwa dumarkiina la daba socda shaaha iyo shaadaliga iyo saambuusaha iyo roodhida iyaga ilaahay wax wanaagsan ku awaaliyo lana wax wada khayr laba jideyseen hawshan inaan inta ku dhamaanaynin waynu arkaynaa baaqaasina waa la diray baaqaasida loo diray baan u diraynaa waa ka xogran tahay xawaaluhu waxa weeyaan de 1 mitir kama yaraanayaan isku wareegoodu 1 mitir kama yaraanayaan maanta hawshan waa bilow waxay u baahan tahay guntiga dhiisha in la isaga dhigo dadka muxsiniinta iyo dibadda iyo gudaha meel ay joogaanba ay hawshaasi ka howlgalaan oo qof waliba uu sadaqad la baxo qof waliba waalidkiisa ku aasan ama waalidkiisa ku aasan halka lagu socday ee la tigay xaqiiqadii in guriga dhabtii waa hawli fi aakhirada ku soconayso waa sadaqa jaariya qof aan ku jirno jirto anigaaba ilaa aabahay iyo aabihiisa kale ilaa awowgayga labaad iyo intii ay dhaleen intuu ku wada aasan yihiin marka qof walibana waa ila mid iyagana ilaahay uu naxariistay inagana intaynu nool lahayn inuu dadaalaaba ina saaran marka waxaan ugu baaqayaa dadka reer Arabsiyood iyo dadka gobolkan iyo dadka kale muslimiinta ee Soomaaliland meel kasta ay joogan dibadda iyo gudaha qof taajir iyo qof kale oo wax karayaba qofba wuxuu kaga qayb qaadan karo kaga qayb qaato taantidu min ka hadalay ta kale xooga inta shaqeynaysa bilaash maanta ku shaqeynaysa waa tabar xoogoodu waa sadaqad inta kale ee maqaaxiyaha fadhida ee suuqa joogtana waxa ku boorinaya inay dhididkooda geliyaan halkaasi dhididka ugu khayrka badan leh wax lagu dhiibo waxa weeyaan hawsha dar Ilaahay loo qabto inay iyaguna ka soo qayb qaataan qofkii wacyigelin iyo abaabul karaya isaguna qaybtiisa ha qaato qofkii xoogiisa gelin karaya caafimaad qabaan xoogiisa ha geliya maanta qofkii hanti hayana hantidiisa ha geliyo walaaliyeenan u kala hadhin hawshan waa hawl dar Ilaahay hawl cid gaar ah loo qabanaya maaha oo waxaynu wada leenahay waana waxaynu wada sugay xaqiiqaduna waa sida ilaahay soo sinoogu soo naxariisanaya roobkana ilaahay aynu barino ilaahay roobka hayna anta baahideen badan waa raxmaadkaasi ilaahay abaarta haynaga soo jebiyo abaarta Allah haynaga soo jebiyo ilaahu naxariistaada ku baran ilaahu abaarta inaga soo jebi abaarta Allah haynaga soo jebiyo ilaahu noo naxariiso ilaahu raxmaadka noo sheego ilaahu sababa noo aamar اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك العافيه والعافيه والعافيه الدائمه في الدين والدنيا والاخره صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين واكن عقل كيدي واكن يا الله يا الله انا حاجه فقل فيني قال انا ما قال يا الله